maanta oo ah maalin Arbaca 24 ay marayso bisha Jamaada al-Aakhir 1444 hijrada nabiga sallallahu alayhi wa alihi wasallam ku beegan 18 January 2023 waxaa sharaf noo ah inuu na soo ziyaartay sheekheena weyn daaciga ah ee mashhuurka ah Sheekh Mustafa Sheekh Ismaaciil xafidahullah iyo culimo iyo wafdi la socda magaalada Gaarisana ay nagu soo gaareen soo dhaweyntiisana ay ka qayb qaateen culimada ducaadda iyo majliska arrimaha islaamka u xilsaaran faraciisa Gaarisa jaamaankiisii iyo tiimkiisii soo dhaweyntaasna runtii waxaa qayb ka ah iyo xiriirinta iyo tansiiqaba gafanaha magaalada Gaarisa marka waxaan leenahay runtii farax bay noo tahay waanta waa maalin weyn sheekhu salaam iyo ziyaaro iyo dacwa iyo wacyigelin mujtamaca degan magaalada Gaarisa runtii aad iyo aad u yaqaana aad iyo aadna ugu hilowsan araggiisa iyo maqalkiisaba muxaadaraadkiisa iyo dacwadiisana ayna ku cusbeen oo runtii aad looga dharagsan yahay laakiin aan tawjiihiisa iyo wacyigelintiisa iyo caqli celintiisa mar walbaba aan laga dhargaynin aad baan u soo dhaweynaynaa waxaana leenahay marxaban bika sheekhana ku soo dhowow magaalada Gaarisa magaaladaadii marti kuma tihid annaguna aad iyo aad baan ugu faraxsannahay la kulankaada iyo soo dhoweyntaada maalmahan yar ee soo socdo sheekha nala joogi doonaa waxaan leenahay mujtamaca Soomaaliga ah guud ahaan gaar ahaan Gaarisa iyo nawaaxigeeda ka faa'iideystaan sheekhu muxaadaraadka qiimaha badan ee uu noo jeedin doono iyo kulamada uu nala yeelan doono aad iyo aad baad mahadsantiin mar labaad iyo mar saddexaad sheekha iyo tiimkiisa iyo culimada iyo odayaasha la socda جزاكم الله خيرا. waxaa ضيفنا أخونا الداعية الشيخ مصطفى حاج إسماعيل هارون waxaana noo bilaabanaya insha allahu laga bilaabo caawa muxaadarooyinkii aan ku talagalay ee ka dhacahayay masaajidda iyo maraakiista oo isugu jiro kuwa dumar loo jeedinhayo oo khaas ku iyo kuwa maaragtay dadweynaha loo jeedinhayo iyo liqaa culummada oo insha allahu aan rajaynayna inay socoto 3 maalmood ama 4 maalmoodba xasab alxaaja marka marxaban wa ahlan wa sahlan fi Gaarisa Sheekh Mustafa Gaarisa waxa weeye المديرية العامة في إقليم شمال شرق كينيا ومغالة madaxdii markii uu iqliimkan ahaa halko laga maamulayo kor markii countiyaha loo qaybiyayna waa wilaayo gooni min xayثu dacwa waa magaalo la dhihi karo dacwada caqiidada meelaha ay ka indilaaqday sharqi Afriqiya ay ka koow tahay marka marxaban وجزاكم الله خيرا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فالسلام الله عليكم ورحمة وبركاته. maanta ay ugu horeyso inaan imaado magaalada Gaarisa waqti hore iyadoo xornimo doonaan maqli jiray laakiin iyadoo xoro oo dadkeedii maamulayaan ayaan hadda imi si fiicanna waa laysoo dhaweeyey culamada waddanka degan aad baanan ugu mahadnaqayaa Gaarisa cilmi gaara uma sido laakiin booqasho caadiya dad Soomaaliyeed oo muslimiin oo degaana inaan u imaado soo booqdo ayaan ku talagalay insha allahu tacaala maalmaha koobanna waan joogi doonaa wixii suurtagal ee markaasi wacyigelina dadka weynaha loo sheegi doonana insha allahu tacaala waa samayn doonaa laakiin waxaan leenahay madax iyo mijaba aad baan idinku mahadnaqaynaa ama governorka ha noqdo ama madaxdii ka sarreysay ha noqoto ama ha ahaato culammada iyo dadka magaalada degana kaleba aad baa u mahadsantiin